بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan kusoo gudbanaynaa gabay ku socda madaxda sare waxa weeye maxaa kula dowladda federaalka Soomaaliyeed sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo wasiirka diinta iyo awqaafta waxa weeye maxaa kula jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. wuxuuna ku saabsan yahay gabaygani dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho iyo dhaqan xumadii lagu sameeyay Sheekh Maxamed maxaa ku raday Cabdi Umal xafidahullah ilaahay ha xaftiyo. waxa weeye waana talo iyo runtii inaan doorkana ka qaadano inaan diinta daafacno sidaan dalka u daafacayno oo qaranka u daafacayno inaan diintayadana aan u daafacno waajib bay nagu tahay sababtoo tahay waxa ilaahay noo abuuray waxa weeye maxaa ku waa inaan ilaahay caabudno wama khalaqtu jinni wal insi illa liya'budun. waxaan ilaahay ku caabudaynaana waxa weeye maxaa ku radaa waa kitaabka iyo sunnadana waxaa noo haya culimada haddii lala dagaalamana waxa weeye maxaa ku idhaahdaa oo meesha laga saarana oo la ceebeeyana waxa weeye kitaabka iyo sunnadiina waxa weeye waa khalaas waa la tuuray. waxa weeye gabaygiina waa kan kusoo dhawaada. Allahena daayina markuu duuloweyna untay Allahena daayina markuu duuloweyna untay dareenkeena goortuu ka dhigay dul wax garanaya markuu dunidan waynoo dhisee dinta ina siiyey. dadka qaar ka mida waa isagii doortay nebiyaale diriceenni baa lagu khatimay ruux la soo diro ee dulmigiyo markuu nooga digay duulow xumahoo dhan uu diinta oo idilna baray diirka ka caddeeyey diirka ka caddeeyey dad munaafiqiina jiroo diiday nebigii markuu deeqsigii oofsaduu darta kale aaday sala allahu calayhi wasalam. ducaad buu halkii noo gasho diinta noo baray durbadiiba qaar baa riddada dawgii maalmaray waatuu sidiq diiday oo galay dagaalkii radia allahu canhu waatuu dhammaan soo dumo diinta daafacaya maantana duruufaan arkaa mase delqaafe waa diin dignin inaan diraa dura loo wadaage waa diin inuu madaxda sare dalabku gaadhaaye intaan qaranka doondoonaya diintii loo dhacaye waa diin dacwadaye bahay inaan u doodaye waa diin inaan daafaca daaciga umaale waa diin inaan uga digaa duulka cayn rabaye waa diin dulmiga inaan dhahaa diidnay beenta ahe waa diin dembiga inaan ridiyo dabinku hoos yaale waa diin dadkaa lumay inaan derisu sheegaaye dowladdan fariin adag u diri oo u digayaaye dadkii laga fidnay diinta oo loona diid xaqaaye dacwadii dad baa boobayo been ku soo daraye dalkana idinkaba maamuloo dowladeenna ahee diintiyo dadkaba idinkaba dowladoodahe musuqii haddaad diidayseen duun la kala boobo diintaa ka mudan oo xaqa laysu soo diraye waxaa dunidan loo umay waa dayin caabudaye dadku yaabe dabinkaa la dhigay duur dharaareede dadku yaabe daaciga raxmaan duurka loo galaye dadku yaabe doodii ahay diintu yay fidiine dadku yaabe deriska la yidhi daaciyuu qamane dadku yaabe dooda la yidhi didnay waanadaye dadku yaabe diinta la yidhi dulow ahaliise dadku yaabe deelqaafka dhacay daawa loo heline dadku yaabe dibadbaxa la yidhi dowladdan ridiye dadkii shiikha loo diiday way idin dayayaane waxay doonayaan waa inaad daalin qabataane waxay doonayaan waa dadkoo laysu soo dumaye waxay doonayaan waa xaqoo dhab u difacdaane
dadka xamarku noolow digniin doorayga hooya daaciga ilaahay mageyo dumarka caydooda sidii daa'if oo kale ayaa diiday waanadaay dulmi baad xigaaloy gasheen doorkan xoog badane diingaabyo iyaba ku helay dul munaafaqa ee dacaayado aan soconaynayaa duhurku maagteen dembi been abuur muuqdabaa duhurku maagteene jahli derajo loo yeelaybaa duhurku maagteene inuu diiday mawliidkabaa duhurku maagteene hadda waafin maytida ayaa duhurku maagteene xaqaynu dadkeennii baraa duhurku maagteene dacni been abuur muuqdabaa duhurku maagteene wax daliil cad loo haysto baa duhurku maagteene dulmi laysu soo geeyey baa duhurku maagteene runtii diin la'aan buu ahaa daqarka muuqdaaye duruufaa ku haystiya ma arag diifta kugu taale 30 sano dulmiga aad gasheen kaama daadegine dayaciyo dhibkaad soo marteen kaama daadegin dagaal ogayaashii ku helayena kala daadshay iyo dowladdii hore wixii dumiyey aasay ducaadeenna nabarkii ku dhacay daqarku weeyaane dembigii ilaah caasintaan dooxnay ehelkeene dembigeenna weeyaan waxaw degiba weydeene dembigeenna weeyaanina dibaad u yacdeen haddaad doonaysaan horumar iyo dowlad caadilaba waa inaad difaacdan xaqoo daahir noqotaane waa inaad dembiilaha runtaa deris cadsiisaane waa inaad waxaan diin ahayn dalow ka tuurtaane waa inaad ducaadoo dhan iyo dulkan shirisaane waa in culimo dood loo furaa dacin gacalowe wayn laga daweeyaa bidcada duulka daba jooga wayn dunidu waa maalmo yare diinta lagu eerto aad dowlad yahay nagu hagtaa diinta boqorkeenna oo dowlad yahay nagu hagtaa diinta boqorkeenna sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam waxaan ka rajaynaynaa dowladdu in ay mas-uuliyaddeeda qaadato culimadan iyo khilaafkan shacabka waxaweye maxaa ku dhahday lagu murugeliyeyna inay waxaweye tallaabo cad ka qaado culimadana ay isu keento sida ugu dhaqsaha badan weliba khaasatan wasiirka diinta iyo awqaafta ayaa mas-uuliyaddaas iska leh oo looga fadhiyaa haddii aanu gudan karin waxaweye xilka loo dhiibayna iyo mas-uuliyaddiisana waa inay waxaweye dowladdu ay la xisaabtantaa annagana ishaan ku hayn doonaa insha allah bismillahi kariim dadka soomaaliyeed waxay sugayaan dacwo socota dowladnimo iyo dacwadooda socota wa sala allahu calayh wala alihi wasaxbi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu